السلام عليكم isku soo noqod wanaagsan maanta waxaynu qaadan doonaa casharkii labaad ee ugu talgalnay maadada pathology-ga koorsada ahayd koorsadaasi oo aynu ku soo barnay casharkii koowaad barnaamijka pathology loo qaybiyo iyo overview aynu ku soo sameynay casharkan qaybtiisa labaad maanta waxaynu ku baran doonaa ee ka tirsan koorsada tan pathology-ga cashar muhiim ah oo loo yaqaano cell injury dhaawac ku yimaada unugyada jirkeena waa ay dhaawacmaan dhaawacyadaasi iyo waxa ay yihiin iyo faahfaahintooda dhammaan waxaad kaga bogan doontaa casharka kani ina la daawo ugu horeyn muuqaalkan intaynu sharxin ka hor waxaan idinka codsanayaa doctors inaad muuqaalkani like saartaan waayo muuqaalkani waxaa inooga baxay diyaarintiisa waqti aad u badan ilaa muddo isbuuc ah ku dhawaad ayaynu diyaarinaynay marka si aynu u helno dhiirigelinteena waxaan kaa codsanayaa inaad inoo like garayso si aan anaguna u ogaano inaad ka hesheen iyo in kaleba mahadsanideen aynu bilaawna casharka marka cell structures unuga qaababka uu samaysan yahay unuga waxa uu ka samaysan yahay marka laga hadlo intani aynu uga jeedno muuqaalka balse waxa basic u ahaa ma asal ah saddex qaybood ka mid ah qaybahaynu ku aragno jaantuskani saddexdaasi oo kale ah xuubka unuga loo yaqaano plasma membrane ama cell membrane oo ah xuubka daboola unuga iyo bu'da oo loo yaqaano nucleuski oo ah meesha DNA-ga ay ku jirto inta badanna ee genetic factorska ay ku jiraan iyo qaybta u dhaxaysa bu'da iyo xuubka unuga qaybtaasi loo yaqaano cytoplasm saddexdaasi qayb ayaa ugu weyn marka laga hadlayo components ama structures of cell cytoplasmka waxaa loo qaybiyaa marka laba qaybood sidaynu sheegnay cytoplasmka waa wax walba oo u dhaxeeya nucleuskii iyo cell membranekii haddaba hadday sidaa ay tahay cytoplasmka waxa uu u qaybsami doonaa laba qaybood labadaasi qaybood oo kale ah qayb dareere ah oo ay ka mid yihiin cytosolka oo kale iyo qaybo loo yaqaano organelles qaybaha loo yaqaano organelleska ayaa waxaa ka mid ah mitochondria oo kale ribosomeska oo kale iyo endoplasmic reticulumka endoplasmic reticulumka waa meesha lagu sameeyo proteinka sidaas oo kale ribosome iyadana waxa ay ku leedahay door samaysanka proteiniska halka mitochondria ay tahay power house ama power generator house waa meesha unuga energy-ga loogu dhaliyo waa meesha unuga tamarta loogu sameeyo marka ay tahay in la dhaho unuga waa uu dhaawacmay waxa ay tahay micnaheeda waxaa dhaawac gaaray 4 meelood midkood ama waxaa isbedelay shaqadii ama waxaa ku yimid burbur 4 qaybood ka mid ah unuga midkood 4taasi oo kale ah mitochondriaha bu'dii oo ah nucleuskii xuubkii oo noqon doona cell membranekii iyo endoplasmic reticulumkii ha noqoto iyadaaba laba qaybood oo kala baxdee qaybta rough endoplasmiga ama qaybta smooth endoplasmigaba haddii 4 meel aynu sheegnay midkood uu ku yimaado functional abnormality ama uu ku yimaado degeneration in shaqadii ay qabanayeen wax ay iska bedesho oo ah shaqadii inay gaabiyaan oo kale ama shaqadaba inay meesha ka baxdo iyo hadday timaado in burbur uu ku yimaado qaybahaasi ka mid ahaa structures of cell waxaa meesha jira injury waxaan filayaa hadda inaynu fahamnay meelaha dhaawac gaari doono iyo structurada ugu weyn ee uu leeyahay cellka hadda aynu gudubna marka pathologically casharka aynu maanta ugu soo dalgalnay oo ah midka aynu kaga hadli doono dhaawacyada ku yimaado qaybahan aynu sheegnay oo ah mitochondriaha nucleuska cell membraneka iyo endoplasmic reticulumkaba kuwaas oo ka tirsan structurada cellka uu leeyahay waxaan filayaa inaad si fiican ila socotid aynu fiirino marka qeexitaanada marka unuga uu la kulmo waxyaabo keena dhaawac ama pressure ama walwal soo saarma unuga oo loo yaqaano stress xaaladaha markaasi isdaba jooga ah ee unuga uu la kulmi doono ayaa loo yaqaanaa dhaawac ku yimaada unuga haddaynu si kale u dhigno aynu ku salayno sharxaadii dhaweyd aynu hadda soo bixinay marka unuga uu la kulmo waxyaabo keena dhaawac oo ah marka unuga si toos ah loo dhaawaco oo waxyaabo keena dhaawac sida jugta oo kale iyo midida oo kale iyo ay si toos ah u soo gaaraan unuga
khaasatan ayna ka dhaawacaan afartii meelood aynu sheegnay oo unuga ugu muhiimsanaa ay intaasi aynu sheegnay ay soo food saarto cadaadiskaasoo noqon kara in free radicals ay soo galaan unuga dhexdiisa waxay keeni doonaan in unuga uu galo xaalad isdaba joog ah. xaaladaasi si kala dayn u dhigno waxa ay noqon doontaa unuga waxa uu noqon doonaa ama unuga uu la kulmi doonaa adaptation. waxaa bilaaban doona cellular adaptation. cellular adaptationkaasi oo ah marxaladaha uu ku socon doono ama uu ku jiri doono unuga ayaa loo yaqaanaa cell injury. hadda waxaan filayaa inaad jaanta qeexidda ila fahantay. dhaawaca unuga waxa uu noqon karaa mid bogsooda ilaa heer. haddii dhaawacaasi uu sii jiro oo uu noqdo micnaha mid raaga ama uu ka sii darsado sidii markii hore uu ahaa, unuga markaasi dhaawaciisa waxa uu gaari doonaa bar uusan ka soo laaban doonin. bartaasi waxa ay noqon doontaa irreversible cell injury. micnaha waxay tahay unuga marka hore marka uu dhaawacmo xaalad waxa uu galayaa reversible ah. waa bar wuxuu tagayaa uu ku soo laaban karo, uu ku bogsoon karo. laakiin xaaladaasi haddii uu ka sii xumaado, chronic uu ku noqdo, waxa uu unuga u gudbi doonaa marxalad uusan ka soo laaban doonin oo loo yaqaano irreversible cell injury. ugu dambeyn haddii xaaladaasi uu kusii jiro, unuga waxa uu noqonayaa mid dhinta. dhimashada unuga waa marxaladda ugu dambeysa, waa resultiga ama natiijada ugu dambeysa ee dhaawaca unugaasi uu ku dambeyn doono. jaantuskani waxaynu ku sharxi doonaa dhaawaca unuga sida uu dhaco inagoo uu ku salayn doono qaybta definitionka hadda waxyaabaha aynu kaga soo hadalnay. unuga marka uu ku jiro xaalad dheelitiran oo ah hemostasis, waxa uu gali doonaa laba marxaladood midkood: in unugaasi waxyaaba dhaawac keena ay soo gaaraan injury stimulus, ama in pressure uu ku yimaado ha noqdo oxidative stress. stresskaasi waxa uu keeni doonaa marka in selka uu galo ama unuga in uu galo marxalad loo yaqaano cellular adaptation. cellular adaptationka waxay noqon doontaa unuga in qaab dhismeedkiisa waxay iska bedelaan, in uu hypertrophy uu noqdo, hyperplasia inuu noqdo, atrophy inuu noqdo. waxyaabahaasi cashar kale ayaynu ku sharxi doonaa, balse inta uu gari doono ayaa ah in unuga uu size ahaan u weynaado, ama number of cellska in ay bataan ee unugaasi uu ka koobnaa, ama in waaba ay yaraadaan halkaani laga waayo. dareenkii dhaawac keenana waxa uu keenayaa isagana in uu horseedo dhaawac. marka adaptationkii iyo dhaawacii toos u yimid waxa ay keeni doonaan in unuga uu galo xaalad loo yaqaano cell injury. unuga marka uu dhaawacmo marka laba marxaladood midkood ayuu ku sugan yahay: in sidii markii hore uu ahaa normalkii ee ahayd hemostasiskii inuu ku noqdo. xaaladda marka uu ka bogsoon karo dhaawacii ku yimid waxaa loo yaqaanaa reversible injury. balse haddii uu raago dhaawacaasi uuna noqdo mid kasii darsada xaaladda markii hore uu ku bilowday, waxa uu noqon doonaa inuu usii gudbo xaalad uusan ka soo laaban doonin oo loo yaqaano irreversible cell injury. xaaladda tani marka uu unuga yimaado, sida aynu sheegnayba, dhammaadkeeda waxay noqon doontaa dhimasho. dhimashadaasi waxa ay ku imaan doontaa marka unuga cell death. unuga marka uu dhiman doono laba qaab ayay u kala baxdaa dhimashadiisa. mid ah apoptosis oo loo yaqaano programmed cell death, dhimasho programmaysan ee ku timid unuga, oo ah dhimasho loogu talagalay unug kasta jirkeena ku jira waxa uu leeyahay xaddi ama waqti oo life span uu noolaan karo. sida RBC oo kale hadaynu soo qaadano, waxay noolaan kartaa 120 beri. waxay noolaan kartaa 120 beri, halka WBC oo kale ay noolaan karto 18 beri. burburintaasi lagu sameeyo markii ay gaaraan life span-kii loogu talagalay waxaa loo yaqaanaa apoptosis cell death. balse markay noqoto necrosiska waa irreversible cell injury, waa dhimasho ku timid unug dhaawacmay, taasoo noqon doonta mid aanan soo laaban doonin, taasoo noqon doonta mid uusan unugaasi soo laaban doonin ee uu dhiman doono. sababta programming loo leeyahay, programming markii unugaasi la dhinto oo uu meesha ka baxo, mid kale ayaa lasoo sameeya, lasoo saaraa. balse wax farqiga ay u kala duwan yihiin markaynu sharaxno apoptosis necrosis. apoptosis waa programming, waa mid amarkiisa uu jirka hayo. marka uu gaaro unuga heerkii loogu talgalay ee la burburiyo, waxaa dhacaya in mid lagu bedelayo replacement ah uu jirka soo saaro. balse marka uu yimaado necrosis oo ah in unuga in selkaasi uu ku dhintay irreversible cell injury ama dhimasho uusan soo laaban doonin,
markaasi ma jiri doonto wax loo samayn doono oo ah replacement. Causes of cell injury. Waxyaabaha keena dhaawaca unuga. Waxyaabaha keena dhaawaca unuga waxaa ugu muhiimsan inta halkan aynu ku sheegi doono. Hypoxia and ischemia. Hypoxia waa decrease in oxygen supply. Marka ay yaraato quudinta oxygeenta lagu quudinayo jirka ayaa loo yaqaanaa hypoxia. Waana most common cause of cell injury. Waxa ugu badan ee keena in unuga uu dhaawacmo waa hypoxia. Ischemia waxa ay noqonaysaa marka quudinta jirka lagu quudinayo dhiigga ay yaraato ayaa loo yaqaanaa ischemia. Si kala hadaynu u dhigno, ischemia waa most common cause of hypoxia. In jirka oxygeenta ku jirtay ay yaraato waxa inta badan keena waa ischemia. Sidee? Sababtoo ah ischemia marka jirka uu ku yaraado quudinta dhiigga waxa ay micnaheedu tahay waxa jirka ku yaraaday oxygenated blood, dhiiggii ku jiray oxygeenta. Haddaba marka waxyaabaha ugu badan ee keena in hypoxia ay dhacdo waxa kow ka ah ischemia. Waxa ugu badan ee keena in jirka uu galo xaaladda hypoxia waxa ugu badan ischemia. In dhaawac uu ku yimaado unugana waxa ugu badan ee keena waa hypoxia. Waxaa ka mid ah qodobka labaad pathogens. Waxyaabaha cudur dhaliyaasha. Pathogens waxaa loo yaqaanaa cudur dhaliyaasha. Cudur dhaliyaasha laga hadlayo waxaa ka mid ah bakteeriyada oo kale, fayrasyada oo kale, fungi oo kale. Intaas waxa ay keenayaan in uu unuga dhaawacmo. Qodobka saddexaad wuxuu noqon doonaa immunologic dysfunction ama si kala hadaynu u dhigno immunologic agents. Immunologic agents waxa loola jeedaa waxa weeye marka difaaca jirka uu si qaldan u shaqeeyo, sida in ay timaado autoimmune disease oo kale, in jirka uu isaga kaliya uu weeraro oo unugyadii jirka ku jiray uu u maleeyo foreign antigen ayaa waxa ay keenaysaa in unugyadii ay dhaawacmaan. Waxaa kaloo ka mid ah congenital disorders oo loo yaqaano genetic disorders. Kuwaani waxa inta badan yihiin waa kuwa lala dhashto. Ciladan waxa ay ka jirtaa proteiniskii iyo DNA-gii ku jirtay unuga kuwaasoo inta badan ay la dhashtaan dadka qaarkood. Chemical injury. Dhaawac ka yimaada kiimikooyin sida dhaawacyada ka yimaada daawooyinka sumowida daawooyinka ay ku sumoowaan jirka. Physical forms of injury. Qaabab waxaa jira iyagana physical ahaan u dhaawaca unuga waxaana ka mid ah qabowga oo kale, unuga haddii uu kuleel ka bato, shuucaca oo kale. Intaasina waxay keenayaan physical forms of injury. Waxa ay ka mid yihiin physical forms of injury waxayna keenayaan in unuga uu dhaawacmo. Waxaa kaloo ka mid ah waxyaabaha dhaawici kara unuga nutritional or vitamin imbalance. In fitamiinadii iyo nafaqooyinkii jirka ay noqdaan kuwa aan isku dheelitirnayn. Nutritional derangement ayaa loo yaqaanaa. Waxay noqonaysaa marka in nafaqadii mar ay noqoto deficiency in ay yaraato, marna inay noqoto excess in ay badato. Marka ay noqoto marka in ay yaraato oo ay ku timaado deficiency waxay noqon doontaa in uu qofka develop gareeyo BEM. BEM-na micnaheedu waa protein energy malnutrition. Excess haddii uu noqdona oo haddii ay proteinadii bataan ama vitaminska ay bataan qofka waxa uu noqon doonaa inuu noqdo obesity. Waxa uu noqon doonaa qof si xad ka bax ah u cayila. Aynu sharaxna wax yar oxidative stress. Oxidative stresska marka waynu fahnay markaynu ka hadlaynay waxyaabaha keena dhaawaca oo ah stress iyo injury stimulus, balse stresskani wax yar aynu ka bayaanino. Stresska waxa uu noqon doonaa horta waxa loo yaqaanaa cadaadiska. Stress waxa uu noqon karaa cadaadiska ama walwalka soo food saara unuga taasoo keenta unuga in uu isbedelo qaab ahaan iyo size ahaanba. Aynu fiirino jaantuskani. Unuga marka uu xaaladda normalka ku jiro waxaa soo weerara mararka qaar marka uu galayo xaaladda oxidative stress waxaa soo weerara waxyaabo loo yaqaano free radicals. Waxyaabahaasi waa kiimikooyin dhaawaca marka unuga. Marka ay soo weeraraan unugii waxa ay qabsan doonaan dhammaan qaybaha unuga, khaasatan waxa ay ka weerari doonaan plasma membrane-ka. Plasma membrane markay weeraraan waxaa dhacaya marka unugii in uu dhaawacmo. Dhaawac ku yimaado marka waxaa keenay oxidative stress. Isbedelada uu soo muujin doono unuga marka uu dhaawacan yahay waxaa ka mid ah cellular adaptation. In uu soo muujiyo in uu unugaasi uu noqdo hypertrophy ama inuu noqdo hyperplasia ama inuu noqdo atrophy. Irreversible and reversible cell injury. Dhaawac soo bogsooda ama dhaawac aan soo bogsoonin oo keena in unuga uu dhinto in ay sababto. Ugu dambeynna
in xaaladda ugu dambeyso ay imaan doontana waxay noqon doontaa cell death, in uu dhinto unugii. Tusaha kan aynu uga jeedno jaantuska waxaan filayaa inuu kuu koobi doono farqiga u dhexeeya reversible iyo irreversible injury. Labada dhaawac ee dhaawaca soo bogsoon kara iyo dhaawaca sii darsan kara inaynu wax badan ka fahamno. Unuga kani waxa uu ku jiraa xaalad degan. Sida aynu ka dheehan karno dhammaan istarajaradiisa waa kuwo ku jira xaalad normal ah. Sabab kastaba ha keentee waxaa gaaray dhaawac. Dhaawaciisa waxa uu soo gudbayaa xaaladda ah xaaladda reversible injury. Xaaladda tani marka uu soo galo istarajarkii ama qaabkii uu lahaa unuga waxa uu isku bedelay plasma membrane-kii ama xuubka gidaarka uu ahaa unuga kani waxa uu noqonayaa inuu yeesho structure ah irregular structure ama irregular shape, qaab aan toosnayn oo loo yaqaano membrane bleeding. Waxaa kaloo dhacaya ribosomeska oo ka tirsanaa iyagana organeleskii in ay kala tagaan. Endoplasmic reticulumkiina in uu barar ku yimaado. Waxaa kaloo imaan kara in unuga naftirkiisa uu bararo, nuclear chromatinska iyagana inay sameeyaan clumping iyo mitochondrial swelling. Powerhouse generatorkii inuu isaguna ku yimaado barar. Xaaladda markay inta taagan tahay marka waxa uu u gudbi doonaa marka kani. Xaaladda tani haddii ay joogto sii noqoto waxa ay noqonaysaa mid chronic ah. Waxay noqonaysaa chronic oo isu bedesha irreversible injury. Dhaawacaan soo noqon lahayn ee hore u sii baxa. Point of no return. Xaaladda marka ay soo gaarto point of no return oo ah irreversible injury waxaa ku dhacaya selkii in lysosomekii ka mid ahaa organeleskii uu noqdo rupture, in uu kala jabo ama uu kala go'o. Xuubkii ahaa plasma membrane oo waxaa kaloo loo yaqaanaa phospholipid bilayer ama phospholipid membrane-kiina waxaa ku dhacaya dhaawac. Waa uu dhaawacmaya sidii marka hore uu ahaa maar hadda waa uu kasii dhaawacmay. Kadib waxaa dhacaysa in mitochondrial permeability-gii uu ziyaado oo ah mitochondrieskii wax walbo oo fluid ah ama electrolytes ah inay iska soo galaan. Soo gelitaanka ay soo galayeen marka ayaa ziyaadaya. Waxa uu noqonayaa increase. Nuclear-kana waxaa ku dhici doono 3 xaaladood midkood. Xaaladda koowaad waxa uu noqonayaa nucleaska inay noqdaan kuwo condensation ah oo loo yaqaano pycnosis, kuwo isku dhedhegan inay noqdaan. Xaalad labaad ay u gudbayaan oo ah waxaa loo yaqaanaa karyoresis. Karyolesiskaasina waxay noqon doontaa fermentation, in ay kala tagaan. Ugu dambe waxay noqon doonaan karyolysis oo ah in nuclearkii uu noqdo in karyolysis ay noqon doontaa oo ah in nucleaskii uu dhumiyo kalarkii oo uu noqdo colorless. Waxaa halkaa inooga eg casharkeenii maanta. Haddii ay jiraan su'aalo ama oraah aad inala wadaagayso inoogu dhaaf qaybta hoose ee commentiga. Casharka xiga intaynu ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa. Assalaamu calaykum.